بدرك ياسين ودعي سمال هذا كتير وزارته وزير بوال بدري طبعا بوني هرت مقرص نك قابنا يكوسنا dadka عاجري dadka عايشر نبغى واحد لو قرطا موت نكاس أجرشيز ما أفجرشيز وكاس نين مركز ولا هبي لو واحد لا نكنا بدون هاي من نكي مساعد كي تشينشري حواضله مساعد كذا نك تشينشري ميا بالله نين واحد لا كي dadka عايشر ميا صح marka sidaad u sheegtay way ninka odaga booni wuxuu tiriyay xilkii dhibi isagoo reer Boorame ama beesha Gadibirsaleera way shaqadiisa ka dhamaatay meeshii waxa la yiraahdaa xiriirka golayaasha wasaaradda xiriirka golayaasha way waa wasaaradda ka ruwaayada ma jirto wax jira maaha okay maalin baa loo dhibay baa laga qaaday صح wasiirka wuxuu ka soo jeedaa gobolka Sool wasiir ku xigeenka wuxuu ka soo jeedaa beesha Ciise laba laakiin isoo shakhsiyan reer Boorame wasiir ku xigeenkaas magacii booni baa xilkii tiriyay booni kale u dhigay labadii booni baa isku dhacay waa loo tiriyay sigane labadan Gadibursiga Ciisuhu waa niman is dhalay oo gacala oo xidida oo isku deegaana si fiican aad bay isu yaqaanaan sax marka arkeen booni meeshan ka caytamaya iyana boonigood bay soo direen waxaan bax ninka nagal marka Cabdiraxmaan Ciidan oo ruwaayad kale wuu ogyahay in meesha nin booni la haysto sax booni kale cusub soo qabto wuu dhigay waa ku tuuray way labadooda bay isdiray dab waxaan ku soo gudbin doonaa boonigii hore ee dadka caay jiray ayaa wuxuu leeyahay shaqaalihii wasaaradda ayaa ii soo dacwooday oo leh ninka la keenay ee cusub boon la yiraahdaa xafiiska ay sigaarka ku dhaxabaa inna lillahi wa inna ilayhi shaqaalihii ayaa ii soo dacwooday waadu meel wasaaradda ka tagin waa ka tagtay ma nin ka tagay baa loo dacwoodaa may waa gardarro toosa dabcan oo sigaarka Soomaaliya meesha laga qeylin sigaar ninku ma wuxuu cabayaa ana tray ma sigaara may maxaa ka galay privacy-giisa waa qalad way kafeegu aad u cabaayay sigaarku aad u cabaayay waa privacy qofka noloshiisa gaarka saas kale waayahay wali wasaaradaha dawladda oo lagu eedeeyay sigaar mayna arag ma jirin ninka ka hor waa gardo oo meel lagu soo gabado sax shaqaalihii baa isoo dacwooday baa ku leeyahay waa ka sii diray taasan garaa marka shaqaaluhu ma nin wasiir mar hore shaqadii ka tagay ay gurigiisa ugu tagayaan ka dacwoonayaan odag waa wareere taas qod ma tahay dabeetana ninkii ay ku tufay wuxuu ahaan jiray sidan wuxuu ahaan jiray iska shaqooyinka gabdhaha sidaa ay yidhahdaan shaqadiisa beed waxaasita asaga shaqadiisa ee way sida shaqadiisa horta isaga daaro uma qaadanayaan waa wasiir ku xigeenkii wasaaradda aan wareejiyay ayay shaqaalihii iyo dadkiiba ka cabanayaan inuu istiig sigaar maalintii ku dhameeyo meesha ninkaas waa inuu sigaar ka joojiyaa caafimaadkiisana uma fiicna ka dadkana uma fiicna haybadii qarankana sharaf dhac bay ku tahay wuxuu gaar u isticmaalay gurigiisa ku isticmaalay isaga yiri maalin dhaweeyta ee soo jeediyay aniga ii soo jeediyay wasaaradda ku xigeen kama ahayn shaqada kuma wareejinay isaga ka yimid buu haayo kaari ahaan jir marka nin kaariyay inuu annaga faraan nala soo galo oo xukuumadda oo imika laga dhigayo magaalada Hargeysa kala garan la علي أفهم هذي رودي من كان رودي ملاهي. نكان رودي ملاها. بولنا كلا عيسى. أيام كوساري بالمركب هراء ماشي كبلا من تهوش. ساير بلا من مانيا. نكها بولي واسكب الدلو بعول بالليلة. نبانو نعيبوني جاي. ذري جدا. ورنتي نكني. بولي ما هي وبعول وانا بقر. مركب وانقشي وبعول بقر. هذا الله حسوس تمجع عيسى. kuwa meelaha ka qalqaliya ninkaan isku magacayno kuma hayna dad inaga ay ugu dhowey deenu wala ninkiisa qabtay hal qabto ninkaasina waxa weeyaan inaga iska leh xukuumadan ma dhaliil karno miidiyana wax marmeeno ummaduna inaga dacwoon doonta hadii wanagaana ka mas'uulad dusha ku qaadanay guushaara inaga lahayn 90% ninka doobar bartooya koodi laakiin waa barashaan loogu dhibin inaan toos arki doonaa mar saddexaad iminku wuxuu leeyahay war hanala soo doona waxan iyo ayga ugu dambeysay war waxa jaahilka laga weydiishay koonkiisa dadkan war waxa sanadka ayda ka shaqeynay wax laga jawaabo ka warkiisu male adeer koowde wasaaraddiina waa taa shaqeynaysa maanta ee qurux badan qushaashkii iyo geedihiina meeshaas aanu ka nadiifinay xaarkoogii baan kala guraaye
shaqaan ku jirnaayo ummadda Soomaaliland iyo annaguba buuna iyo xilifyada iyo wax laga dhaxeeyaa ma jiro qushaashkiisa u maanacnay iyo caydii ummadda ku hayay geediina ingega caydiisa dowladda baa nagu daadanaysa marka waan ku ducaynaynaa in kaama fuux kaga shidnay ma yaanigu xaflagaada ma sheegin isagoo wixii uu sameyn jiray ma sheegnay anagu ma jirto waa ninkii dadka caay jiray iyo mas'uuliyiinta halka Soomaaliland maanta xukuumad cusub baa ka dhalatay عيدي سبب ماشي كذا قينا كم مرة نبي كله حمانتيزي إدا لله على ما شاريد بوني جوهر وحيري نكني كاريبو هانشري بابور سكرية ويا بابور نكان وزير كذا قاعد يجيب كله أي ويا أي بوني جوهر يسوي ملعمد باكا كعضي ملعمد ولا هانشري دكان كعب ولا مرت دكان كعب أركي جرها دكان كعب كل شيء مرك دكانك مركي ودين بدن بحيو أو اسبحون وايا وكعب هذا الهذا صح أو عم سوق الواي وقوية ما يدور برغاشي خنش يفيد على سحرة ويا مركي يفيد سحرة ومركي الدين نقطين ما شو بدن بيس سحدة سحدة مركي نقطين الحرسة صح بنك ربسي ويا اوكي الدكان يوم خايد يسحدني اما كعدي سبارك نين معامد باكا كعدي كعدي بس انك برده عيالك باكا يعي والله قالتي بونيغا هوري dadku waxay jirlay marka ma halkaas soo ciyaalka marka aradii macaamadii kacdun buu xagga u leeyimay oo kaariyal waa wiiri weli wuxuu haystaa in shaqadii kulmiye u hayo iyo caydii marka maadaama caydu barto waxa jiri jiray yaasino aduu wada yareeyay laantii su'aalka ee muqdisho anu qofna magaciisa sheegi maayo صح nin la yiraahdo Nuur Bidaar Allah yarxamu u dhintay ayaa haysan jiray صح waxa irida joogi jiray rag baa irida istaagi jiray صح waxaan ka xasuustaa markaa nin aan hadda magaciisa sheegin صح uu nool yahay صح shaqadiisu waxa ahayd bax istaag joog soco dib u noqo soo galo jirto imisa iriba sheegay afar sida Salman Gaal dabeetana qof baa soo naadana xafiiskiga isagoo baa ku taagan joog maxaad u baahnayd hebel hebel lama ogola noqo maaha isluuta maaha bax tag wariya oo joog noqo marka misle sigaar meelaha ku cab oo meeshii taagan arkin sigaar cabaan ma soo galay ay maanta bax soo noqo wixii la qabsaday bari dhawada ma xarkay isagoo dawladihii Soomaalida soo maray iminka meel mas'uulka ah way aad baa loo qasay marka ninkii awgeed ninkan waxa ninkaasi iminka de la yar weyneenaya soo ninkii u galaba oran maayo bax tag soo noqon wallahi tasleeway way wixii arabkiisa uu 20 sanadood soo hayay wali wuu hayaa dabcan wadhamin marka ninkii odayga ahaa ayaa berigii dambe anu xafiisyadiisa ma aragay sheekada igu qasab badna xawee nin buu guri ka qaaday marka guriga dadka deela dhacay way ay guri ku habsaday fadhiistay way ninkii baa isiri ballan ka sameeyay isiri ninkii u tago labta hadal ninkii guriga soo muddo ku jiray salaam calaykum markuu bax tag noqobo macna wili baa soo taagaya marka ninkii baa ninkan aqoon baan leh hadda la nabudugay way ninkii baa ii sheegay way marka san ku iri waxa ka daalin intaas waa intii 20 ka sano wuxuu ku moodayaa inaad baasaboor doonaysid صح inaad guri doonaysid ma ogaba una qobax u tasaxo buuligani inaad muuse bixi doonaysid ma moodayaa bax tag nacala buu mutale wallahi adaga wareer ma oga in dawladda hore ay dhacday ay dawlad kala bedeshay tan ay mid kala bedelayaan bax tag joogtaas buu ku jiray marka waxaan oran lahaa dadka u shaqeeyay dawladda ee hore ugu soo shaqeeyay iyo kuwan dambe shaqada ay iyo adeega ummadda u hayaan ka sako waa inay noqdaan شوف الكلمة الطيبة بعد كلمة ولا صحتها والصدقة صح مركز ضدك أديجيسين إما كان عيتم يساعد قف دمر أولي توكوسو عبطي وذي ويا سيد محط قرن سمرك أنت نبض داد له مركز عليه ما دام حفيز المسؤول ومد أديجيسين هيصبرن إن ضدك عيدين هددات أود ضدك سمعوا حيل هذا مركز حفيز يسكو قبطان يجب حفيز كيا صح wuxuu haysaa inuu leeyahay صح waxa xafiiskii dawladda dabeetana xafiiska ayaa maalin kadib shaqadii laga ereeyay صح suuqaas ku arkaysan ninkii shaqo qofka lahaa iga baxfiis tag marka xafiiskan ma lihid shaqadana haysid ma lihid ummad baad u adeegaysaa
ummadda intii waqtigaa ku siman ee aad u qaban kartid u qabo صح intii wanaagaad kula hadli kartid wanaag kula hadal صح xog hayn baad leedahay mid iridda istaagaad leedahay mid protocolka baad leedahay mid discipliinka baad leedahay gabadh xog wax gargaraacdaad leedahay waxaasoo dhan iyana adeeg kale wadaan si fiican haddaad maalin walba mikrofoonka ii dhibi tiraahid أنا هذا oo nin wasaarad kala haysta caydid oo mid isleedahay madaxweynaha wax kaga hel aad ku caaysid يمد بالس كفردي بنانك جوجو إسك عينيس ha وين marka dambe marka lagu aasayo ها meesha Penfield meesha meedkan ها adoo isla qofaas baa wax leedahay kan hebel miyaa ninkii aan doonin aasno ها marka saa lagu leeyahay hebel baa naanista waad garanaysaa ها kii wax caay jiray baa هذا ميد adoo meeda أنا وده ha marka buuni waxaan leeyahay wixii hore سكيلو ee aad soo qabatay buuniga reer Boorman la hadlaya ها Abdulrashiid Maamsa Abdinaasir baan maaynayaa عبد الرازق بون Abdinaasir oo salaamayna waana iyo walaalnimo أيوة حقوق شيء ayaan ugu sheegnaa waxaan leenahay dawladii hore hadii ay qarjita iyo feer iyo laab aad ku soo martay tan dambe wixii ka dambeeya wanaag iyo ninkii odayga ninkaas imaam masaajid buu xitaa ahaan jiray asaga waxaan aad u amaanayaa xinif weeye xinif anoo marka qaarkood farta ku fiiqay imsa jeer baad aragtay wax badan oo ka daa dadka adeer cayda adeer dadka aflagaadada ka daa hadda miyaad maqashay wargeedii waa ka aamus yaa laga guulaysta dagaalkiisii uu soo galay kanuu ku tufay kanuu iska celiyay nin wax iska celinaya buu ahaa meeshii doonta baa la gashay sax maantana meel buu kafee ka cabaya dadkii ay shalaysayeen maanta si jahay la qoslaya markaas la casirkii baa la dameynaa mariya waa la israacaya cid magaalada ka taqaano oo xinif waa ka oran saxta ma jiro طبعا ها ninkiina waa ka wali ku jira sigaar baa meesha lagu cabay shaqaala ay socawday barnaamijkeena maanta war magaalada meesha naqdu mar garab uudo dadkii kaamera ka dabato dadkii kaamera ka dabato duubay ma buunigi yaray baa ay kuleeyeen buunigi kuusna way aad aad u maasanta way ali aad aad maasiyad daawadayaal waxa halkaas noo soo barnaamijkeena kaftanka tan iyo kulankan damida kulmidan waxaan kaga tagnaa sidaas in nabadgelyo amaana Allah